madaxa xafiiska beeraha iyo horumarinta kheyraadka dabiiciga ah ee degmada Doolo-Ado ayaa ka warbixiyay dalagyada sanadkan ka soo go'ay degmada Doolo-Ado ee gobolka Liibaan. Mudane Cali Nuur Cabdi Axmed ayaa sheegay sanadkan in beeraleyda degmada Doolo-Ado ay si wanaagsan uga faa'iideysteen wax soo saarka beeraha, iyaga oo xoog ugu badan saaray dalagyada kala duwan ee beerashada, gaar ahaan basasha oo ah tan ugu badan ee sanadkani soo go'day, iyada oo la soo gooyey 317 gawaadhida waaweyn ee xamuulka oo u dhiganta 17 milyan oo kilogram oo basal ah. Doolo-Ado waxaa mara laba webi oo balaaran, Ganaale iyo Daawo ayaa mara. Labada webi waxaa si toos ah looga wada faa'iideystaa, walow ay iskaashatooyinka iyo gacan qabashada ay ku baantahay dhinaca Ganaale, haddana labada webi waa laga faa'iideystaa. Xilligan aan hadda ku jirno ee soo dhaafnay wuxuu ahaa xilligii laga faa'iideysanayay cash crop-ka waxa loo yaqaan sida basalaha. Sanadkanna basal aad u fara badan baa la tabcay. Degmada waxaa caqabad ku ahaan jirtay laba caqabadood oo balaaran, mid fatahaadaha oo joogto ku ah iyo suuq la'aanta dalagga. Alxamdulillah fatahaadii sanadkan ma jirin, laakiin basalihii soo go'ay sanadkan waxaa ku dhacay suuq la'aan aad u ba'an. Sanadkii hore xilligan camal halkii laga bilaabay 26 bir kiiladii, hadda waxaa lagu bilaabay 14 bir, iyada oo ay saameynta keentay xaaladaha uu ku jiro wadanka gudaha iyo dibadiisaba ah. Sanadkan waxaa soo go'ay 378 gaari oo Euro Tracker ah oo u dhiganta ilaa 264,600 oo kintaal. Kiil ahaan u dhiganta 17,199,000 oo kiila. Dalagaasi oo idil ayaa soo go'ay. Si wanaagsan ayayna dadku uga faa'iideysteen. Xagga caqabadda waxaa ahayd suuqa oo aad u dhibaateeyay oo hoos u dhac balaaran ku keenay, laakiin bulshadana way ka faa'iideysanayeen. In badan dadku way qasaareen, dadna way faa'iideen, dadna xad ay noqdeen. Guud ahaan khasaare aad u balaaran muusan jirin, laakiin khasaare la taaban kara ayaa ka dhacay suuq la'aanta darteeda. Marka dalagga hadda soo go'ay xilligan waa xilliga waxa hadda aan u diyaar garoobayno la saaraya ayaa waxay tahay galleydaas oo ilaa hadda annaga waxaan qaybinay 50 kintaal oo galley ah iyo 15 loor oo sisin ah iyo 15 loor oo digir ah ayaan bulshada u qaybinay, si haddana saraca hadda la saari lahaa ee looga faa'iideysan lahaa, maadaama uu jiro sixir barar aad balaaran inay bulshada kaga faa'iideysato. Waxaan ka geysanay sanadka hadda la soo dhaafay waxay ahayd sanadkii xafiiska beeraha ee heer deegaan iyo heer federaal ay bixiyeen agabkii ugu badnaa ee la isticmaalo. Waxaan ka geysanay 2,300 yuuriya ah, yuuriya ee daab isugu jira amaba bacriminta loo yaqaano nafaqeynta ah. Waxaa kaloo aan bixinay 190 kiilo oo basal ah oo qaar heer deegaan naga soo gaaray iyo qaar aan xafiis ahaan u iibinay ah. Waxaa kaloo aan bixinay 200 oo kintaal oo galley ah. Marka dhiirigelin fara badan ayaa loo sameeyay. Sidii horena hadda way ka fiican yihiin beeraleyda, xafiiskii way kusoo xirmeen, baahiyaha xafiiskii way la wadaagayaan. Marka iskaashatooyin ahaan ayaa loo bixiyay oo sidaa baa aan ugu qayb qaadanay. Ugu dambeyntii madaxa xafiiska ayaa kula dardaarmay dhammaan beeraleyda inay ka faa'iideystaan wax soo saarka, sidoo kalena ay caqabad u arkin dhibaatooyinka yaryar ee suuq la'aanta ah. Bulshada in caqabadaha iyo dhibaatooyinka yar ee taagan inaysan waxba u arkin ee wax soo saartaan ayaan ku dhiirigelinaynaa. Waxaa kaloo aan leenahay waxay bahdaada ku siiso waxay beerta ku siiso bahdaada kuma siiso. Haddii maanta basashii suuqa loo waayay ay yiraahdaan suuq la'aan baa dhacday, waxaa imaanaysa inay niyad jabaan. Marka inay niyad jabin, inkastoo xilligii ugu dambeeyay walow ay gaabsi noqotay loo helay shirkado qaadan lahaa basasha ee heer federaal ah, haddana laakiin baahidii ay u baahnayeen iskaashatooyinkaas iyo baahida marka ayada loo taalay ay kala yaraadeen iyo taa u dhacday. Insha Allah sanadka dambe ka xafiis ahaana inaan xilligii inta aan la gaarin aan kasii howlgalno yaan samayn doonaa, ayagan inay beerihii ka faa'iideystaan oo wax soo saarka ay sameeyaan. Cabdi Xakiim Maxamed, SRTV, degmada Doolo-Ado ee gobolka Liibaan.